bismillaahi raxmaani raxiim. xafladii heer sarreysa loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo bandhigayay waxqabadka hay-adda bisha cagaaran ayaa lagu qabtay magaalada london ee xarunta dalka britain. xafladaas ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasiyiin, aqoon-yahano, ganacsato, isboorti, wariyayaal, fanaaniin, abwaano, ururada haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. xafladaas ayaa waxaa khudbado meelo badan taabanaysa kasoo jeediyey mas-uuliyiintii kasoo qayb galay iyo xubno ka tirsan hay-adda. bismillaah, maanta aad iyo aad u mahadsantii run ahaantii khiyaarta sharafta leh iyo wajiyadan quruxda badan. maanta waxaan isugu nimid xaflad run ahaantii 12 bilood la sugaayo oo sanad jirsatay oo xafladii labaad ee hay-adda weyn ee bisha cagaaran ee ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay. marka caawa wax walba oo ay hay'adda ayay soo bandhigaysaa iyo waxqabadkeedii. marka inta aanan u gudbin wixii aan isugu nimid marka hore waxaan ku bilaabanaynaa quraanka kalaamka rabbul caalamiin oo noo akhrin doono Mustafa Usmaan Jamlest oo leeyahay wiilkan dhalinyarada da'da yar. soo dhaw Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. جزاك الله خير الجزاء. ميزانك حسناتك الله كو سارو annagana Allah naga dhigo ku anfaca. inta kadib waxaan rabaa inaan u yeero runtii caawa waxaan naga xasuusinaa inaan isugu nimid sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay hay'adda weyn ee ummadda Soomaaliyeed ee leeyihiin bisha cagaaran. waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha hay'adda run ahaantii martidan qaybka iyo qiimaha badan leh ku soo dhaweyn doona xafladeena walaalkii ugaaska Joor Allah falyatafadal mashkuura. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نبغى ندي سلامي مرت شرف تقييمها يقايا له معناها ما أهني أنا هاي قف كمان وأقوم بدن أو كتير سن تيم كبيش عقارن بس ما عنسلا إنك ولي تعيات هاي نكان هلا سكور مري بس واحد هذا هو فرح سنة هاي إن كميت هاي تيم بلارن أو كوبن أفري تمام قفوت أو رنتي dabaradeeg iyo runtii karti iyo hufnaan muujiyay oo caawa intaan oo qofood ay marti u tahay runtii waxa kaliya aan isdhihi karo waxa ku faani karto waa teamwork. marka teamkaasina laf dhabar u yihiin hablaheena Soomaaliyeed gabdhaha qiimo badan oo runtii laf dhabar u ah. taasina aan ugu mahad celinayo as a German inaan ahay gudoomiye sababta marka gudoomiyaha macnaha waxaan isleeyahay rag iga aqoon badan igana qiimo badan ayaa meesha fadhiya balse waxaan isleeyahay waxa lagu maamusay inay ahayd qofkii ugu horeeyay ee qayb ka noqda bisha cagaaran oo maanta runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan dadkan quruxda badan iskugu jiro rag iyo dumar inaan maanta aan soo dhaweeyo oo aan nasiibkaas runtii aan u yeesho anigoo matalayo tiimka bisha cagaaran. waan aad baan ugu mahad celinayaa tiimkayga oo runtii oo kartida iyo hufnaanta iyo dhiirigelinta iyo adeegga muujiyay labada sano ugu dambeysay oo runtii aan isleeyahay waqti qurux badan ayaa soo socda. marka mar koowaad iyo mar labaad waxaan idinka mahad celinayaa waqtigiina qaaliga ah aad maanta soo horteen. sideedaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam hore ayuu waxa u dhahay ummaddeeda laba nimco ayay haysataa aysan ogeyn. waxaa ka mid ah asixa walfira caafimaadka iyo waqtiga. maanta qofkii waqtigiisa ku siiyey macnaha wuxuu ku siiyey cimrigiisa barkiisa ayuu ku siiyey. marka taas abal baan idinka haynaa runtii mahad
كل إذا ما هتعلي كرو ولسه الله سبحانه وتعالى هيدين ما هتعلي مركوات يا مرلبات قفل بمنصب كأيلة هاي يشرفت أيلة هاي أيان كسود وينيا آدي أيان إذا كم هتعلينا يا وحي نجح قدمنا كل يدي وان قرقورنا ناي هنوضو قاتي إن شاء الله عاو aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada markoowaad iyo marlabaad tiimkaygana aad baan ugu mahad celinayaa oo runtii halkaana soo gaarsiiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan markaan ugu mahad celinayaa dabaqaabeyaasha waa uqaabiya xafidda dadka badan leh waa la sheegay geedaha faa'iidooyinka leeyihiin أنا حبيت أن أقول مع المقدشو حمر قدام الله هيسين أو هيسون برادير على هيسين أو هيسون حمر على هيسين أنا عاد هيسين برادير وكود ديال لك هذه هنا ديش ديال بطل أمبستور markan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa howlqaabayaasha xafladda quruxda badan leh waxaan kaloo ku faraxsanahay sida qurux badan u timaadeen u soo buuxiseen laakiin waxaan rabaa in arrinta loo yimid oo ah fundraiserka in laga qayb qaato hadda waxay qabatay waxa waaye wax loo baahnaa waaye Soomaaliya waagii hore waxaa jiri jirtay in guri kasto uu ku yaalo laba geed aniga xaafadda ku dhashay ee awlaad ayaan tegay maxalla sanadkii hore guri hortiisa waxaa ku yaalo geed oo hooyadii Allah fadhiisa ay abuurtay ilwiinu ku yaala marka in la isxilqaamo oo guryaha dadka loo sheego la wacyigeliyo faa'iidooyinka ay leeyihiin loo sheego marka aan caawino yaadaan kaalmeyno miiskiiba 20 insha Allah taala caawin maalin horseed waxaan saxay waa maasantiin waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada walaalkay ugu horeeyo qoryoolay markii sanadkii hore waan joogay insha Allah oo wuxuu ahaa kanaan si weynay inaan si wanaagsan uga soo wada qayb galno kii horena si wanaagsan ugu idlaaday aan shuur dad badan oo markii hore aan joogay caawina jooga waxaan idinka mahad celinaynaa inaad si wanaagsan oo taageerada ku muujisaan dhalinyarada markay dhalinyaro yihiin oo ay rabaan inay wax sameeyaan ama ay qabanayaan wax wanaagsan oo future-ka ama dhalinyarada dambe wax u taraysa inay qabtaan in la garab siiyo aad ay wanaagsan tahay waxaan rabaa inaan u yeero marka wasiir dowlaha caafimaadka galmudug ila soo dhaweeyo wasiir dowlaha caafimaadka galmudug Axmed Cali Fafaale wasiir dowlaha hore galmudug بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحدا دولدا قنصلك قصريدي سفارتك سعودتا iyo ambassadoriyada shahore oo jooga dhamaan qaybaha ka soo qayb gal xafladda dhalinyarada ururka bisha cagaaran oo runtii aan aad ugu faraxsanahay caawina xafladda ka soo qayb galo gabdhaha quruxda badan odayaasha dhalinyarada dhamaantiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh marka salaan kadib galmudug waxaa isleeyahay marka loo yeero oo galmudug la yidhaahdo inkastoo hadda wasiir aan ahayn oo ciyaalka xaafadda iska ahay maadaama shidaal aan qodanayna xasdeen sacab aada la sacdina waxaa lagu xeeran doonaa laakiin waxaa nagu xeeran diideen oo amaleynaa hadda weli jaanisaa furan intaas kaftanka oo gudbaahe waxaan runtii ku faraxsanahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurba joog ah oo maanta ka fikiraya 2 sano ka shaqeynayay inay dalkii cagaariyaan Soomaaliya waa qaleel dhul qaleel ah dhulka qaleel oo noqdaan anaga ka dhigno Soomaalida ka dhigta iska ma noqon inay marka maanta ay London jooga oo nolol haysta ay ka fikiraan inay dalkii dib ugu laabtaan ay geedo ku abuuraan oo Soomaaliya cagaaran ay keenaan waa mas'uuliyadii laga rabay dawladda waa mas'uuliyadii laga rabay dadka hoggaanka dalka ka ah ayay dhabarka u riteen marka horta waa mahadsantihiin annaga maxaa laga rabaa Soomaali haddaan nahay qurba joogta haddaan nahay maxaa la rabaa anigu qurba joogta kuma jiro galmudug xafladda uga imid dalku markuu burburay wax kasta naga burburay dhirtii burburtay ummadii la atay dhaqaalihii burburay dadkii qaxay Soomaaliya
waxaan ognahay doorka qurbajoogta ay ku lahaayeen dalka dibudhiskiisa waata hadda uu ambassador hore ka hadlayay markii dowladnimada dalka lagu celinaya dadka ka shaqeynaya waxa ugu xooganaa dadkii qurbajoogta ay ahaayeen dhaqaalihii markuu burburay qof kastoo soo baxay oo dalkan soo aaday wuxuu dib ugu celiyay dhaqaalihii uu ka shaqeynayay qabowga ku shaqeynayay inuu dadka ku biilo ku celinayo hadda waxaan rabnaa dalkii waa degay dowladda noo dhisan in sidaa la qodaa laga fakaraa horaa loo socdaa ilaahay horaa noo wado laakiin qurbajoogta mas-uuliyadda saaran waxaan rabnaa inay ogaadaan inay yihiin inay tahay in dalka cagaarintiisa iyo dhirayntiisa laga shaqeeyo in dhallinyarada la garab istaago la xoojiyo lagu taageero dhaqaale iyo cod lagu taageero aragti garab istaag dhammaystiran loo muujiyo taasna waxay keenaysaa waxaa laga yaabaa idinka dhan ama badankiina Dubai tagteen Dubai dal saxara ah laakiin geedaha Dubai ku beeran iyo sidoo u cagaaran tahay waa dhaqaale la geliyo waa annaga Soomaaliya markaan joogno dhulkeenu waa ka baxrisan yahay dhul baxrina waaye dhul geeduhu ka baxayaan waa geed aan ka bixin ma jiro laakiin loo istaaga kaliya ay rabtaa buurtaas baraf baa kor ka saaran kulligeed maxaa loo waardiinayaa yaa jabsanaya meel sidaa loo adkeeyey maxayna tahay danta laga leeyahay in meesha sidaa loo adkeeyo buur dhexdeeda oo la shamiintayo haddana la waardiyeeyo norwijku waxay dhaheen adduunku wuxuu u socdaa in midhaha la beerto dad gooni ah marti looga noqdo waa mahadsantihiin dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee caawa ka soo qayb gashay xafladan sida heerka sare ah loo soo agaasimay ee ka socota magaalada London Soomaalidu hadalka sidiisa waxaa loo qaybiyaa laba qaybood dadka Soomaalidu waxay dhageystaan waxa loo yaqaano tixda oo suugaanta badankeeda ay ku socoto gabayada iyo noocyada kale ee suugaanta laakiin marka ay hadal timaado aad ayay u adag tahay dadku inay dhageystaan caawa oo dhan waxaan maqlayaa goobo fara badan oo ka socda golahan oo ujeedkiisu u yahay ama ay isugu yimaadeen dad Soomaaliyeed oo weli dareenkoodu u nool yahay doonistoodu ay tahay halka aan joogno oo magaalada London ah iyo adduunka intiisa kale oo aad ka timaadeen magaalooyinka la sheegay ee Sweden, Finland, muxuu ahaa Denmark, Norway meel kasta magaaladii ugu dambeysay aan taga waxay ahayd Bucharest boqolkiiba 75 magaaladu waa dheeraysan tahay waa magaalo mar hore la dhisay magaalada London oo aad joogtaan gabadhyada ay leedahay isgoys kasta oo ku yaala xaafad kasta oo ku taala waxay leedahay goob ay dadka isugu yimaadaan maalintii ay burburtay Soomaaliya dadka Soomaalida waxaa ka soo dhex baxay arxanlaawayaal aan dilin oo kaliya dadka deegaankana nabad guuriya ku faana kumanaan kun oo tan oo dhuxul ah ka dhoofiya Soomaaliya caawa waxay tustay markii aan soo galay howlkan in weli ay jiraan dad Soomaaliyeed oo damiirkoodu u nool yahay sida ay idin sheegeen far kaligeed fool ma dhaqdo soo sax maaha bal gacantaas aan leeyahay caawa fartaasaan ka laabayaa afartaas kale inta ay qaadi karaan oo biyo ah ma ii sheegi kartaa haddaan iskaashanno waxaan wax tari karnaa nafteenna nafta ubadkeenna iyo ubadka ay dhalaan bismillahirrahmanirrahiim waxaan salaamayaa dadka kan fadhiya masabka soo ku fadhiyaan waxaan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan mahadcelinayaa guddiga qabanqaabiyey hawshaan aad u qurxoon oo samafalka ah oo aad u fiican oo ah bisha cagaaran waxaan ahay taageero bisha cagaaran uma soo istaagin hadal badan halkan caawa waxaan rabaa inaan u sheego oo aan ugu bishaareeyo ragga walaalaha halkan jooga caawa waxaa ila socda nin oday ah oo la yiraahdo Cali Yaxye oo dhashay Cabdiqaadir Yaxye Cali Yaxye waa albaabka laga gala Holland jaaliyada Soomaaliyeed ahaan dowlad ahaan iyo samafal ahaan intaan soo soconay ayaa waxaan u sheegay meeshaas inay u baahan tahay gacan in la siiyo lagu koobin Ingiriis oo la fidiyo Holland iyo Scandinavia la gaarsiiyo wuxuuna ballan qaaday inuu diyaar u yahay inuu gaarsiiyo dowladda Holland EU-da samafalka
dhan kasta oo lagu horumarin karo bishaas insha Allah waa isbari doonaa waana heshiin doonaa waa mahadsanid waxaad ogsoon tihiin ummadda Soomaalidu inay ku taagan tahay ama nolosheedu ay ahayd hawsha caawa laga hadlayo iyo cimilada iyo dhirta iyo nolosha dalka xoolaha nool waxay ku nool yihiin dhirta innaguna xoolahan ku nool ama caano aan ka helno ama hilib aan ka helno haddii dhir la waayo waad garan karaysaan halkaa waxaa ka imaanaya baaba ummadeed marka bilowga hadda la bilaabay dhiraynta waddanka oo dhan iyo joojinta dadka xaalufinaya sidii uu Cabdicasiis Xildhibaan haddaba uu bidhaamiyey in ay weli socdaan iyadoo dhirtii la tallaalayo haddana dad inaga naga tirsan oo weliba hogaamiyaal sheeganaya inay dhirteenni jarahayaan oo ay dekada ka dhoofinahayaan oo ay wadamo kale ka gadanayaan iyadoo dhuxul laga dhigay marka hawshaas waa hawl inagoo dhan inoo wada taalla hadal badan aan uga soo kicin xusuusintaas u soo kacay waa laga hadlay wixii ku saabsanaa ama fundraising qaran aruurin ka qaybgal intaasaan lagu soo istaagay inaan idin xusuusiyo aniga iyo dadka la midkaana inta nooftayda lagu jirto waxaanu ka shaqaynaynaa qaran Soomaaliyeed oo midaysan oo jira oo xoog leh oo aanu caruuraheenna kuwa dibadaha ku dhashay inteennaan dibadaha joogta aanu ku nasano oo ka baraara Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhanba salaam calaykum aad iyo aad u mahadsan yahay thank you so much haddana waxaan rabaa shakhsi runtii bisha cagaaran ee qeyb weyn ugu fadhiyo oo baal dahab ugu qoran oo run ahaantii korriinadeedana goob weyn ka qaatay oo bil walba lacag $100 ku bixiyo inaan u yeero haddana xubnaha bisha cagaaran ee 14 ka kooban gabi ahaanba hadiyad u keenay ee qof walbana hadiyad u sida qof kale maaha waxaan rabaa inaad la soo dhaweysaan maama Sahra Jaamac sacabkana la siiyo qabadkeeda runtii waa wax muuqda run ahaantiina qof qarin kara maaha cadceeduna sacabka ma duwo maamada mar labaad ila soo dhaweeyo السلام عليكم كل جماعة سوق القناة كله هذا فيسبوك استريتهم كلك أحمد إسماعيل يا عوي ما نهرسات تذكر أنا لك أن هذا يسوع جيتين الله شرفه ويلي ريال ويلي قبيل ولوليهين مرة بينا هوي أنا نورمال إيموشن مركا وحكوا سكري بيت عادي تخبره إسلام وينا الحلقيان أو دمعنا مركا لكل من بشع عالم وأعد بهم حقيقي رجليان قال الله سيو ويلكيجا جراد وويلكيجا كلا عن عاد حريم ولا نهاي يوراك درسك حلاشة هاي نسوي ذاكين وأنا قرب كودان تاجنا حبيب المال إذا كانوا حد قصنا إلى جنس because وحول بعد ما أنت حتى أنا رجال أو حنا كل وابورينا ومحيط جيبنا مركتان وواحد important ووتكني ساوش جدا ونوع معناه أنت الدولة الآن حين صد الله صابس معلوم البحران وصيص عنايا سومالي إن شاء الله قدام من خلص مركتان ما أنت بيجي رام وصل بندقي سلامه نعم وحبيبي رامين هذا وحنا هاي أدي داري ذيك عن كورتي وحبيبي مريم لكن وايد كرم جونا مركا فكرة وحيت هاي أنا وافانا يا عاو تام بحير وحكتر وحربا جيت بورنرا جيت جونا جيت ورنرا أوريجي أرجعو جيت أرجعو صعد برتي أو ألف ولا ده ألف وين كذا قصة دارا لعبت ديار حتى بحنا ليه كذا مركا I love you guys Somalia هنولاتو وقف
aad u daalan runtii shaqo badanna ka qabtay bisha cagaaran ree Sweden xafladii ka dhacday Sweden la suuro gelisay aad runtii u daalan waxaan leeyahay soo dhawow markii aragtay wadanyadii Soomaalnimada dadkii cajisku waa ka kacay dhammaantiin waa idin salaamayaa malay maqlaa maqal ma jiraa waa idin salaamayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan sida quruxda badan aad uga soo qeyb gasheen maasha allah anigu waxaan ka imi Sweden magaalada Borås bisha cagaaranna waa noogu yimaadeen halkaas waana ugu mahad celinayaa sida ay noo soo dhaweeyeen aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan iibsanayaa 5 geed waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan salaamayaa madaxda Soomaaliyeed waxaad moodaa xoogaa khushuuc inuu ugu jiro aniga Soomaaliya wax ku soo barto kala dambeyn laho Soomaalinimo jirto baan ogahay marka hadda dadku waxaan ka garanayaa cali Ameerika markaan maqlay xaafadii baa soo xasuustay aad baan idin salaamayaa aad iyo aad waa mahadsantihiin aad u mahadsantaa walaashay waxaan noo dhimanaanayso runtii gabadhiyaan joognaa waan kaga mahad celinaynaa suur marka laba qof aan qaadanaynaa kadibna shahaadooyinkaan dhiibaynaa xafladeena halkaasi noogu soo idlaanaysa waxaa u yeerayaa walaashay Caasha Macalin oo leeyahay This way. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاود ديار ما هنا ورما ما هو حشيرو مصاب تايت لكن ولا يوكلي يقاطع مركب يقول سبحان هذا إلهي عز وجل هذا ولا إلهي سبحانه طيب إدمي إنا ماشى لسوي معنا أنا بعرف ما قبله وعلى هذه كرمها عرف ماك مركحي في الشير يركع يا الساحل قام يقولوا إذا كشخ يعرف ماك جدوا روح كليه ما عرف ماك حتى وايه درت واحد بدن والدواء على جهنا واحد بدن أو بدك مكان جونا اسكت يعجلنا أنا قربان مكان ما أنا وحاول أنا فيركس فاسي فينا هنا يبدأ دبت درت بجفت ساس درت المركو حقب الله مينا إن درت بيرد هذا كنت دارو درت بيرد هذا إن كنت دارو ودك إن الحارفين لما تجار إن لقدين دولة دلالة الشقية دلك هدو دولة ليه والدولة دلالة الشقية ونبتقليه إماته ممكن والو برواقه أنا قاعد نوصل بريتك أنا بريتك واسكدافينا ساس درت المركو حقب الله مينا هذا اللي يرقيه هون بدل بعد هيدا وين وما شاء الله ولا قراد وحلا يسودو قراد كنا نقولنا هو إمادي وأنا شخص كميدا كنت قصري هيدا بيش عقارة وريه هنا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أدبان دي سلامية قبل قيمة على ملاحظة شرفت لهير وسير xildhibaanada iyo waliba ambassadorada kulli waan salaamayaa suxufiyiinta waan salaamayaa xildhibaan hore aan jeeda oo maaragtay dawladii hore markii aan aragtay salaamayaa dad aad iyo aad arrimaha bulshada qiimaha uga leh waa ay muuqdaan oo aad iyo aad u qiimo leh dooraysi saaro jaamac Ibraahim maamo aad baan ku salaamayaa adiga iyo Adan Axmed dhammaan bisha cagaaran waa laga hadlay waxay u taagan tahay waa xaqiiq waa ablaha waa gabdhaheena qiimaha leh hal loo bogaadiyo meel walba ay joogaan gabar Soomaaliyeed waxaan u taaganahay haddaanu nahay dhaqanka dhalinyaradu 14 dhalinyaraha isku tagtay SYL labaad weeye marka si loo fiiriyo marka waxaan u taaganahay inaan wadanka qaybihiisa kala duwan aan gaarno gobolada meel walba kamida shanta Soomaaliyeed haddii Ilaahay yiraahdo in cagteenu ay gaarto waxa inta ay sii dheer dhalinyarada isxilqaantay
haddaanu nahay dhaqanka waxaan u istaagaynaa haddii ilaa yidhaahdo in aan wada garab istaagno haddii ilaa yidhaahdo aniguna xibinaan ka ahay waxaa soo kordhayana dad badan oo dal iyo dibad nagu soo biiraya oo iskugu jiraan aqoon-yahano siyaasiyiin iyo madax dalka xoogaa wax u soo qabtay laakiin muhiimadteenu waxa waaye maxay dhirtu noo tartaa faa'iidada aynu ka helno maxay tahay haddaad fahmaysiin dhirtu waxay difaacday dalka si kale haddaan u dhigo odayga kaarisa geela ka wadi ee jigjiga salkeeda dambe tegey ee xadka jabuuti tegey wuxuu ku socday waa geel uu naq raacanayay dhirtu marka dhul badan bay maaragtay noo difaacday aynu beerno ana loo istaago bisha cagaaran waxayn idin leedahay qof kasta oo Soomaaliya meelshuu joogaan ugu tagi doonaa haddii ilaa yidhaahdo waa hay-adda keliya ee si firiya wax ku dhiibta dadka isbitaalada jooga meelaha danta guud ayaan xoogga saarnaa waanu soo gaabinayaa fanaaniintana si khaasan u salaamayaa waa ina ruuxeen waana qiimo badan yihiin odayaasha iyo oqaasha meesha joogan waxaan leeyahay guuleysta aad iyo aadaan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in iyadana dadkeena qurba joogta inagu dhaqaaq badan dadku way baxaan hurdhiyo u baxaan inagu dhaqaaq badan dadka marka maadaama inagu dhaqaaq badan nahay waxayna awoodnaa waxyaalo badan bayna awoodnaa inagu oo aan dadka qurba joogta aanay awoodin waxa ka mid ah adigu fikirkii baad haysaa kow wadamo kalaad ku dhaqanto dhirtooda aad ogtaysay saa loo dhareeyey marka adoo waxaa soo fikiro wataa oo haddana inaad ka qatanaatid maaha shaksi ahaantaada adoo wixii iyo dhan og haddana inaad waddankaagii markaad aragtid oo bilaadhira adigoo dareenkii kugu jiro oo og inaad wax qaban kartid haddana ma aha inaad iska fadhiisatid maahe waxaan ka codsanaynaa intiina halkan iskugu timid iyo inta kale ay gaadhsiin doonaanba inaad dadkaad ku dhiiri gelisaan oo qof kastoo xataa waddankii taga inuu halgeed abuuro waa halgeed maxay ka taraysaa intaa marka halkaa geeda abuurtay wuxuu u dhiirigelin noqon doonaa qofka ku xiga oo niyo markasta 2 sano ka bacdi markaad tagtid aad aragtid geedkii oo baxay waxaad dareemi doontaa inaad isbeddel samaysay markaa isbeddelkaa samaysay waxa kugu dayan doona iyagana amba mid guriga kugula nool amba mid aad qabtid amba mid aad dhashay amba mid kula dhashay intaasoo saameyn ku yeelan doonaa markaa laakiin waa goorma waa marka adiga kaa soo goodid ee aad hawshii ku dhaqaaqdid laakiin haddayna waxba aynu ku dhaqaaqin inaynu isku nimaadno oo aynu intaynu fikirkii qaadano halka aynu kaga tagno wax shaqaynaya maaha muhiimadda ugu weynay jirtaa ee aynu ku hanweynaa de waddankaadhana intuu leeyahay aragteen baynu doonayna inaynu dhirayno ee ilaahayna siiyey marka haddii aynanu innagiiba inaga goonayn shaksi ahaanteenna خاصة dadka halka joogay loo fureen badanaa dadkaas waxay la harjadayaan nolosha dadka waddanka jooga badankooda laakiin inagu wax badan oo vocation u tahay holiday u tagna haddana waxayna awoodnaa toban laakiin xataa tobanka ninkaan ka gaari karin xataa bal 2 iyo 3 iyo hal inuu gaarsiiyo insha Allah hadduu raali ka noqdo talabaada kale idinku booriyayna waxay tahay ilmaha halkan inoo jooga insha Allah ee aynu dhalin hadduu raali ka noqdo haddii xataa hordhay loo baxay isaga laftarkiisa inaad tiraahdo aabo amba hooyo adaa waddankan iskale kaad u dhalatay waa kan kana kaaga baahi badan kaad ku dhalatay marka maadaama uu waddankaagu bilaadhir yahay isaga laftarkiisa carruurta laftarkooda waxaa khasab ah baynaynu u sheegno bayniyagu xataa wax soo beeraan kabacdi markay soo noqdaan after few years markay noqdaan waxoogaa sanadaan kabacdi oo ay noqdaan waxay xaqiiqsanayaan inay wax soo qabteen laakiin innagii waalidka ahay ee wax fahmaynay ee wax hagi karnay haddaynu arrinkaa ka aamusno wax inoo soconaayo maaduula raali ka noqdo marka niyaho waqtiguna waa iskurayaan dad badanna way iga dambeeyaan insha allah halkaas ka kusoo gabeynaya hadalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantahay runtii waxaan filayaa inay laga aqbalay soo dhaweyntaas iyo haddii ilaa yidhaah cudurdaarka intaba haddana waxaan rabaa in aan u yeero runtii shaksi aad iyo aad u qiimo badan oo aas-aasihii runtii hay-adda bisha cagaaran qofay ku dhalatay maskaxdiisa ka timid ku fakeray runaantii qofkaasi qof kale ma waa shaksi mudan maanta marka waxaa soo socda aad daawataan magaciisa biyo dahab in lagu qoro qof kale ma ahan in ay la soo dhaweysaan aan codsanaya waa madaxa ugu sareeya hay-adda bisha cagaaran cabdidaahir qoryoole loo garonogahay cabdi xasan soo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan sida la sheegay waxaan marka hore aan ka hadli doonaa sida mawduuca halkan ay ku qoran tahay waxa waaye waa maxay sababta bisha cagaaran ama loo aasaasay ama sababta bisha cagaaran ee geedu u abuurayso marka hore waxaa rabaa idea oo ah xagee ka timi in geeda la abuuro dabcan marar badan waa maqasheen adduunka waddan walbo inay geeda abuuraan iyo cimilada kullaanayso iyo waxyaabahaas laakiin haddaan fiirino marka Soomaaliya kasoo bilaaw 40 sano dagaalada sokeeyaan ku jirnay ka hore dalka waxaa ku socda waxa la yiraahdo xaluufin ku socday oo deforestation ku socday oo xooli ah marka 1995kii ayaa khubaro scientist ayaa waxay bilaabeen inay maqaale ay ka qoraan ay yiraahdaan waxaa loo baahan yahay dal walba inay geeda abuuraan in 1995kii ka bacdi looma qaadanin serious looma qaadanin ka bacdi 2001kii ayaa waxaa bilaabatay UNEP ama waxa loo yaqaano UN environmentalka ayaa waxay bilaabeen inay yiraahdaan from 2021 ila 2030 in wadan walba uu geeda abuuro now marka fiiris marka Soomaaliya maadaama hay'adda UN ama UNEP ama ay wadamo walba ay ku qasabtay ama in ay hirgeliyaan in geeda ay abuuraan then dalka Soomaaliya waa dalka kali adduunka maanta hadaa fiirisid ama statistically ahaan marka la fiiriyo waa dalka kali aan geed abuuris uusan ka jirin then halkaas markay marayso waxaa dhacday marka inaan fiirino marka ama fikirka oo ah in aan samayno hay'adan oo bisha cagaaran ah maadaama waska taqaanaa Soomaaliya wasiirada iyo dowladda ahaanta qofka shakhsiga wuxuu ku joogaa waqti ku socda waqtiga marka qof waqti ku socdana way adag tahay inuu wax qabto ama inuu wax uu sameeyo then marka fikirkan marka waxaa bilaabatay oo ah bisha cagaaran in aan hirgelino waa ilaa mahadiisa dad badan oo aragtidii oo noola qaatay ayaa maanta bisha cagaaran kuwa muuqdo iyo kuwa aan muuqaninbo waxay soo jirsatay labada sano ayay soo jirsatay then sababta marka geedaha u abuuran maxaa waaye haddaa fiirisi marka Soomaaliya maqaalo badan oo artikalo badan ayaa laga qoray intaan taas u galay marka waxaan fiiri statistiga East Africa maadaama East Africa ku jirno Soomaaliya marka waxay noqotay dalka keli aan geed abuursiisan ka jirin compare marka fiiro wadamada dariska noole Ethiopia hadda ugu dambaysa waxay xirtay 350 million geed ay one day ku abuureen haddaa fiirisa marka Kenya madaxweynaha hadda jooga Ruto wuxuu saxiixay decree oo ah 15 billion geed in la abuuro oo dalka Kenya ay abuuraan waa ogtihiin Kenya waa dal already oo cagaaran waaye oo environmentalist ama dad wadan wada green ay geedaha ilaaliyaan Kenya waxay abuurtay 750 million geed ay abuureen I think 2 to 3 months ago 750 report kala geliyo haddaa fiiris marka Tanzania waxay iyagana sameeyaan 230 million geed ayagana ay sameeyaan Soomaaliya marka madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu decreeto ku sameeyay 10 million oo geed in la abuuro anaga taas ka jirno anaga taas aawadno marka waxay dhacday Soomaaliya marka waxaan siri waxaa jirta 1918 ama 1917kii philosophy oo dalka Jarmalka Immanuel Kant dhahay wuxuu leeyahay aqoonta waxa ugu horeysa qofka waa inuu dareen leeyahay so qofka hadduusan dareen lahayn uu aqoon u yeeshto then aqoontii haddaysan wehelinin dareen aysan wehelinin then waxay noqonaysaa ma shaqaynayso ama shakhsi wuxuu noqonayaa tiisi bas inuu fiirsado oo tii environment ama tii danta guud ee dhanna uu hilmaamo marka wuxuu leeyahay aqoonta waxaa ka horeyso daryeelka ka horeyso marka waa inaad dareen leenahay
dareenkaas marka wuxuu keenayaa waxay ku tusaysaa marka everything ama environment ama surrounding adiga agtaada in aad ka jawaabtid marka dalalkaas marka statistical marka fiirs wadamadii marka ay gaareen intaas million waxaan isweydiinay okay Soomaaliya marka yaa u maqan waa marka so Soomaaliya marka waxa u maqan marka meelaha Starbucks ama cafe maxaa la yiraahdaa cafeneero maalin anigoo fadhiyo oo barnaamijka marka koow aan diyaarinayo ayaa naag cadaan oo waayeel waxay tiri maxaa sameynaysaa then waxaan ku yiri project ayaa rabaa inaan hirgeliyo oo ah geeda abuuris xagee ka timid ku tiri marka waxaan ku yiri Soomaaliya markaas waxay tiri Soomaaliya way u baahan tahay geeda ay tiri laakiin waxaan ku weydiinaa dadka Soomaalida ma ka dhaadhicin kartaa in ay geeda ay abuuraan markaas waxay tiri you are doing good job laakiin try to be hard tiri in dadka Soomaalida ka dhaadhacis in geeda ay abuuraan so marka TV-da marka wadankan Soomaaliya waxay arkayaan inay tahay meel saxaro oo desert ay tahay hadda Soomaaliya desert ma tahay yes 1980-gii waxaan fiirinaynaa waxaa soo socdo konsulka soo socdo isagaa soo dhaweynaya marka Yunus. My yeah, fix it. The presentation. Okay. Rana, just want to see this. Just want to see it. marka fiirina marka inta marka waxa dhacday marka qolada report waxa jiraan UN ay soo saareen oo ah waxay leeyihiin marka Soomaaliya marka markii la gaaro 2030 temperature-ka degree Soomaaliya wuxuu noqonayaa 1.4 ila 3.4 degree ayuu noqonayaa that means waxaa laga hadlayaa 5 sano waxaan joognaa 2024 6 years kadib waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxay noqonaysaa temperature-keeda oo qoraxda ama kuleelka 1.4 iyo 3.4 degree ayay noqonaysaa then report kala imaaday waxay leeyihiin marka Soomaaliya waxay noqonaysaa 1.5 2.3 degree ayay noqonaysaa by 2050 markii la gaaro then haddana report kala imaaday waxay leeyihiin Soomaaliya waxay noqonaysaa 1.4 iyo 3.4 degree 2080 ayay noqonaysaa marka waxay ula jeedaan marka oo ah hawada ama cimilada waxaa qaboojiso geedaha ayaa qaboojiya meelaan geed lahayn marka waxa waa means meelaan dabeel hawo ka jirin waay tusaale yar haddaa fiirsan dadka Soomaaliya tegay maraan warshaqa u sii socday ayaa waxa dhacday gaariga ku jirnay meelaan istaagna inaan waaynay aan neefta xataa waxa way ugu dhigaysaa hal geed aan harsaa xataa ma jirto so marka haddaa fiirisa marka riboodada oo qolooyinkan UN ay ka diyaariyeen Soomaaliya waxay leeyihiin marka haddaa fiirisa riboodkaas in 2001 ilaa 2004 Soomaaliya waxay dhumisay 429,000 acre oo dhul ay dhumisay that means waxaan dhuminaynaa
dhulkii kaymaha ahaa oo wadankii ayaa dhuminona. So that means waxa waaye every year sanad walba Soomaaliya waxay dhumisaa 4.5% oo dhulkii beeraha ayay dhuminaysaa marka. That means waxa waaye wax geedo oo Soomaaliya oo la abuurayo ma jirto waay marka. That means Soomaaliya waxay noqonaysaa marka meel saxara ah oo dadka ay ka guuraan ay noqonaysaa. Saameynteedana marka waa ugu tegaynaa dhibaatada hadda ay Soomaaliya ka jirto waay marka. Then report kala imaaday waxay leeyihiin from 2000 ila 2017 hadana waxaan dhuminay over 686 acre oo dhul ayaan dhuminay marka. That means waxa waaye dhulkii hadda anaga asaabisha cagaaran ahaan markaan bilownay inaan geeda abuurno ma aaminaysiin meelaha hadda Soomaaliya geeda looga baahan yahay waxa waaye dhulkii oo geedii lahaan jiray waay. Tusaale magaalo yar oo waxaan laga soo wacay oo Jowhar u jirta 14 kilomitir u jirta waa Hirshabelle 14 kilomitir Jowhar iyo magaalooyin badan waxa jirta dhulkaas adiga surrounding Hirshabelle. dadku waxay ugu baahan geedo u baahan waxay ku leeyihiin waxa u baahan geedo u baahan marka haday sabrada xataa ku soo diraan geedii wadanka yaalbaniis waxa way mar hore waa la xalufinoyaa oo haddana ay runtii dawladda ay soo saartay in aan geed la jari karin. Now ujeedin marka adeerkan ujeedin dhibaatada Soomaaliya marka haysato waxa waaye especially dhulka xeebaha subax walba markuu soo kaco gurigiisa wuxuu ka celiyaa bacadkaas uu ka celiyaa means waxaa loo diray shaqo oo joogto ah halkii la rabay in geedo la abuuro adeer uu soo kacayaa subax walba gurigiisa wuxuu ka ilaalinaa inaysan bacadka guriga aysan laqin wuxuu sameynaa marka bacadkaas wuxuu uga celinaa gacanta uga celinaa that means waxaa dhuntay fahamkii oo ahaa in dalka uu baahan yahay geedo uu baahan yahay ama dadkii Soomaaliyeed ay ogaadaan halista ay leedahay in aan ogaano ay taas keenaysaa marka. Now meesha waa dhulka xeebiyo waa hal geed oo ku yaala dhulkaas oo dhan maana hadaa aragtaan hadda deegaanada marka waxay noqdeen dhul aan la degin ayay noqdeen complete especially meelaha aad u duubmaya waxa dhulka xeebaha meelay ay deganaa hadaa fiirisaan sidoo kale kulub diinowda hadaa fiirisaan dhammaan meelahaas waa meelaha hadda ay duubmeen waay sababtay u duubmaan marka waxa waaye tusaale kale waan tusay meesha marka waa kulub diinowda maxaa la yiraahdaa cadalle iyo maxaa la yiraahdaa warshiq dhulkaas oo dhan xeebaha waxay ay sidaan u yihiin sababta hal geed oo ku yaalo male dadkina haddana fahamkina marka waxaa waaye inay geedo u baahan yihiin ayaa ka baxda waxaa dhacda marka tusaale waxaan geedo geynay macaana geedo geynay geedihii marka hal geedkii ugu har anigoo bixinaya maama waxay tiri geedkan isii markaas waxaan maama gurigaaga waa u jeedaa ariga ayaa ku xiran markaas waxay tiri arigan anfac kuma qabay geedkiisii si aan u korsado aan har u helo muddo gaaban ka bacdi leen maamada marka waxay noqotay nasiib waxay heltay halkii geed inaan siino sababta ay waxay leedahay ariga aan haysta anfac kuma qabo laakiin geedkiisii sababta meelo badan dad Soomaaliyeed waxay leeyihiin waxay degan yihiin guri jiingada ay leeyihiin hadday guri jiingada leeyihiin means waxa waaye geedana meesha ma laha. Now fiirina marka waa Soomaaliya iyo Madagascar halkan Madagascar waa dadka Madagascar qofna uma tagin iyaga naftigu iyaga keligooda waxay sameeyaan marka inay isku imaadaan ay sameeyaan maxaa la yiraahdaa ay geedahaas ay abuurtaan marka meeshan waa Madagascar waa maadaama Madagascar ay tahay waxay dareemeen Madagascar waa taqaana waa jasiirad oo bad dul saaran waa dadkii deegaanka waxay dareemeen in uu bacad uu duugayo ayay dareemeen maadaama ay dareemeen inuu bacad duugayo deegaanadooda dadkii waxay sameeyeen inay isku imaadeen ayaa waxay bilaabeen si ay jasiiradooda aysan u duumin inay geedahaas ay abuuraan dad sababtaas marka waxa waaye 5 sano ka hor waaye compare 5 sano ka hor maanta meesha ay joogaan waxaa jirta hay'ad ku taala Oxford ayaa waxay soo direen maqaalada ka soo direen maraan arrimaha Soomaaliya weydiinayo waxay soo direen book oo Soomaaliya geedaha ay lahayd oo ku haboon in lagu abuuro oo ku saabsan arrimaha environment ahaana ay soo direen marka waa kuwan dadkii deegaankii dhan marka waxay sameeyeen mobilization ayay sameeyeen inay isku tagaan ay tuuladooda inay geedaha ay ku abuuraan
anagana Soomaali ahaan maanta waxaan joognaa dhirtii inta hartay oo ah uu dalka lahaa ayaan xalufinoona oo waxaan sameeynaa dhuxul laga shiido waxay dhirtii noo noqotay business ay noqotay ganacsi ay noqotay marka waxaan fahmi la'anahay halista imaanayso haddii geedaha oo la guro maxaa ka dambeyn doonta waa marka waa kuwan haddaa fiirisaan sawiradaha maalin walba haddaa tagtid xamar banaankeeda waxaa arkaysaa baawuro konton ka badan looriyaal ee dhirtii waddanka dhan oo saas ay u yihiin arkaysiin marka now bisha cagaaran marka waxaan bilaabnay marka last year sanadkii hadda tagaa waxaan abuurnay 80,000 oo geed ayaan abuurnay anagoo dowladna ku tiirsanaayn hay-adan aan ku tiirsanaayn isku xilqaanay annaga asaa bisha cagaaran ahaan iyo dad kale Soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa oo nagu kaalmay in aan fikirkan uu socdo oo meel walbo inaan geedo geyno now dhibaatada marka waxay ka tahay inta markii hadda meeshan waxa waaye Soomaaliya waa hay'adda environmentiga waaye hay'adda environmentiga marka waxay samaysay intaan anaga marka barnaamijkan aan bilaabin waxaa waddanka la keenaya geeday banaanka keenaya dowladda oo ah maadaama environmentiga oo la rabo in geeda oo waxay rabeen 100,000 geeda waxaa laga keenay dalka dibadiisa laga keenay oo ah inaan environmentiga Soomaaliya aan wax ka qabano ilaahay raxmadiisa marka waxay saamaxday markaas Soomaaliya asafisha cagaaran ahaan markaan bilawnay barnaamijkan dowladda geeda dambe dalka dibadiisa laga keeno halkaas ay ku istaagtay oo ah halista ay leedahay markii ay waxaan u dabaaldegnay xataa in geedihii oo waddanka laga keenay dalka dibadiisa laga keenay then waxaa la sameeyey daafura loo sameeyey halista ay leedahay markaas lagama fikirin markaas waxaan u tagay wasiirka waxaan ku yiri wasiiro shaqo fiican aan qabanayno siin laakiin geedaha markii banaanka laga keeno halis ayay wadataa oo ah geedka waxay wataan caray wataan maadaama ay caro wataan caro oo geed ah waddan kale marka laga keeno saameyn waxay ku leedahay waddankaaga ayay ku leedahay oo ah waxaa jirta waxa la yiraahdaa soil contamination waxay la sameynaysaa caradii oo waddanka laga keenay haddii cudur leedahay waxay la falgalaysaa caradii waddankaaga ayay la falgalaysaa taas marka waxay keenaysaa haddii caradaas tusaale ahaan ay wadato waxaa jirta waxa la yiraahdaa lead ama bir oo ka mid ah ay ku jirto carada haddii ku jirto ee caradaadi oo meeshii ku abuurto halkaas cawska ka soo baxa ariga cuno arigana ay dadka ay cunaan then leadku waxay ka dhex muuqanaysaa qofka bini'aadamka jirkiisa ayay ka muuqanaysaa then waxaa arkaysaa qofka nabar ka soo baxay ilaa amaadiisii markaan bisha cagaaran aan bilaabnay waxaa istaagtay geed dambe dalka dibadiisa laga keeno ayaa istaagtay oo ah practical dadku waxay arkeen practical dadku waxay arkeen in fikirkan la sameyn karo markaas waxaa ugu dambeysay in geed dambe dalka dibadiisa laga keeno that means waxaan ka hor istaagnay xataa geedaha marka banaanka laga keeno waxay leeyihiin geed waddankaaga ku habboon iyo geeda ku habbooneen tusaale hadda markaa waddankan imaanay ama dibadda imaanay waxaa jirto geedo oo na dhibaayo aan ka qaadno high fever aan ka qaadno hadda Soomaaliya markaa joognay badankana waxaa dhici karta in high fever aan qabin laakiin inta markaa imaanay geedo waxaa jirto oo anaga na dhibaayo ayaa jirta aan la qabsanin so marka waddan walba marka wuxuu ilaaliyaa marka geedaha waddankiisa ayuu ilaaliyaa ama waxaa loo yaqaano indigenous tree loo yaqaano ayuu ilaaliyaa then dhirta markii banaanka laga keeno halista ay leedahay marka waxaa waaye sidaa ujeedaan waxay keenaysaa marka saameyn ayay leedahay oo isbedelka deegaanka kordhinta cudurro ayay leeyihiin markii geed banaanka laga keeno sababta waxaa waaye sidaan ii sheegay geedka banaanka laga keeno waddankaaga keentid wuxuu saameynaa xataa kaaga waddankuu saameynaa wuxuu saameynaa carada wuxuu saameynaa marka taas waa marka midda aniga aan mar walba aan ku celcelinay for the last 2 years ama maqaalo ama meel walba aan ugu qorayn waxa waaye in aysan good aysan ahayn haddii geed banaanka laga keeno oo waddanka laga keeno iyadoo la sameyn baaris aan la sameyn taas mid waxaan ka hadlayay midda oo ahayd saameynta ay ku leedahay carada waaye sababta waxaa waaye carada keli waxaa waaye waddan walba wuxuu ilaaliyaa carada ayuu ilaaliyaa carada midda waxaa waaye waxaa jirta kikooyada kuwa la dhaho kikooyada qabiilka kikooyada la dhaho kenya degaan
cunuga markuu dhashay saddex shay ay ugu dardaarmaan oo ah cunug waxay yidhaahdaan ha wasaqaynin carada waa midda adiga ku quudaysa waaye den carada waxaa waaye waa midda marka adiga dhimatid oo ah oo lagugu duuwaayo waaye waxay dhahaan marka carada waa midda iyada wadanka ama deegaanka oo ilaaliso marka waxay ka hadlaan marka waxaa waaye kikooyada haddaad tiri deegaanada waa 20 milyan waaye oo tiro badan waaye oo deegaan yar degan isku cariiriya haddana waxay ilaaliyeen deegaankooda ilaaliya in carada la wasaqeyno ayaa waaye marka anaga badan marka waxaan ku celcelinaa waxay tahay geedka iyo carada inaysan kala maarmin waaye